هذه طبعاً كأما اللحدة أما تدبده أما سديدة أي نوع قرنوا إلى إستشار شرحان أي نوع عضينه وقبيلة ده إنك إنه شقينين قبيلة ده إنك إنه مش شقينين سو مركين قبيلة ده إنه مش شقينين إنه ما أنت فورم كان النقطة إنه كي أي نوع عقبتها كوجدة ما كهر قاعد لهين أو إن الإسلام مركانا وبفايدة سنة هاي سيدة حبلها سمانت أي وصوبح لهاي نجوان روين أركي افتسابنا بدي ويلي وحبلها أركي أكون يتالو وشي dalada haweenka ee nagaad ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qabatay kulankii sanadlaha ee wadatashiga haweenka. Kulankan oo dalada nagaad si joogto ah u qabato ayaa lagu lafaguraa arrimaha haweenka ee kala duwan. Kulankan ayaa ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee haweenka, ganacsatada, siyaasiyiinta, dawladda iyo ururada arrimaha bulshada. Ayaa sanadkan diiradda lagu saarayaa sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haweenka ka hortaagan inay guul ka gaadhaan doorashooyinka soo socda ee golayaasha qaranka. كانوا قبلنا هذا من هاي نجار لكن ما أنت وحنول لي هي مدنان كدوانتي هراء وحين كهل تشرني تبضن محي هيدين تبشوينك أما إن عقبة هاي نهر تاجن فرصة هاي نهاي سنة وباهن اللي جفايد يستويد ويتسوق الجلاد دناعية بدن أو كل دوان أو هوينه هو وتاجن قيبها كل دوان بالشدة ما أنت لكن وحين حوج صارينا حبلها مشرحين تاع وتصالة نولنا وما أنت حبله كهرية سنة كلا بكون يكوبيا لغاتن في آني إنه وصو بحن عدنا أو أين كوبوليسن إنه ما أنت فورم كان النقطة إنه كي أين عقبتها كوبدا ما كهر قاد لهين أو إن الإسلام أركانا وبفايدة سن هاي سيدة حبلها سمانت أي وصو بحلها هاي ردود ديني يحوجين أو مدي سنة ينوبو تاجير لهين waxaa inoola socday riwaayad yar oo runtii iyadana aynu doonaynay dhiirigelin ka mid ah qaybaha caqabadaha haweenka hortaagan inay dhiirigelin inoo noqoto oo aynu caqabadaha laftarkooda sidaynu uga hortegi lahayn sidaynu uga shaqayn lahayn aynu maxay ahayd iyaduna ay qayb uga noqoto dadka maartay musharaxiinteena aynu ku faanayno ee tirada badan leh sidaad muuqatay muddo dheer ayaa nagaad soo wadnay waxaan doonaynay inaan gambood dumar ka dhex muuqato golayaasha caqabado badan oo halkana lagu soo bandhigi doonana waa lala soo maray. waxaan xusuustaa golihii deegaanka ugu horreeyay 2002 in aan ku dadaalnay in dumarka xisbiyada oo kaliya markaa xoogga la saarayay inaan dumarku ay liiska ku jiraan liis baa oo lagu soo doonanayo deetana maanaan fahansanayn in ay liisku sida loo kala horeeyo tahay oo winning positionsku ay ku horeeyeen mid walba waan eegnaa saddexdii xisbi qaran waxaan aragnaa in ay liiska dumar ku jiraan maxay tahay kulmiyo way ku jiraan maartay udub way ku jiraan laakiin ku jiritaankaas halka ay yihiin maana garanay show inta liiska ka sarreysay ragiba waa inta ugu dhow marka hadhow doorashadu dhacdo anagoo inta fahanay oo hadana ka ololeynayna dadkana ka wacyigelinayna inay xisbiyada u dadka musharaxiintii ay xagga hore liiska iskaga qoraan hadii kale aanay xisbigaas xisbi dumar oo gol aan u ahayn ayaa hadana laynoo bedelo one man one vote leeyahay tiina weynaga ilaayo intaas oo doorasho oo Somaliland ka dhacday inaanay wax alaali wax inooga soo baxo dee la taaban kara aanay jirin lambarkay doonayeen inay ugu daraato tii ugu dambeysay imika maxay ahaatay halkan waxa ka soo baxay kolley maxay ahaatay caqabado badan caqabadaha maalin walba waa la sheegay laakiin caqabadaha waxaan doonaynaa inay strategy plan inoo noqdaan oo lolaheena soo socda oo ay noqdaan qaar practical aynu hirgelino hal qodob baa meesha taala maadaama aanu dhinacii saxaafadda aan ka socdo waqtigii hore sharaxnaydeenna ama aad doorashada galayseen aan soolja ahaa haddana hoggaankiisana aan ka soo mid noqday soolja kolley haweenka in badan wayna dhaliilaan oo waxay dhahdeen saxaafaddiina ma garab taagin iskuma jiraan saxaafaddu qaar idin garab taagan iyo qaar kale waa la heli karaa laakiin haddana
marka aniga iyo in ila mida la eego xoog baan aan idiin garab galay marka dhinac loo eego waa sidii ay doorashadu u socotay sidii xaaladu ahayd qof aan la soo hadlay ma jirin ilaa marka ay doorashada galayeen taa marka laga yimaado waxa aad loo soo celceliyaa caqabadihii koorintay inta aan programmada qabanayayna caqabadahaas ay laga hadlayay haddaba caqabadaha maxaynu kaga gudbinaaba meesha taala caqabad way jirtaa haddii aad wax tallaabo qaadana caqabad waad la kulmaysaa waxaan caqabad lahayn ma jiro caqabadu laakiin waa cashar la barto oo la odhan karo caqabad baan maray laakiin caqabadaasi maxaa kaga gudbaa haddii aan nidhaahno caqabad baan maro ma tallaabsan karo aad tidhaahdo ma tallaabsan kartid haa laakiin waa inaad tidhaahdaa waan ka dhaqaaqi karaa waan tallaabsan karaa maxaa kaga tallaabsan karaa shay kasta ood caqabadiisa martay ha kuu qornaato note ha ku ahaato markay note ku ahaato taa maxaan kaga gudbi karaa taasaan kaga gudbi karaa waa inaad adigu intaad meel fadhiisato wixii aad kaga gudbi lahayd ay kuu diyaarsanaataa marka ay kuu diyaarsan tahay waxaad gaadhaysaa guul baad gaadhaysaa laakiin haddaynu meel iskugu nimaadno caqabad ka hadalno waxaynu ku gaadhaynaa doorashada dambe caqabad iyo bartii taagan markaa bal taa laftarkeeda si weyn ha looga baaraadego doorashada dambena ceeb weyn bay noqonaysaa haddii ay haweenku soo bixi waayaan inta caqabadaa lagu mashquulsan yahay markaa yani bahashaasi mar dambe nagu soo noqon garab bay idin siinayaan saxaafaddu diyaar baan idiin nahay annaga waxaa nala gudboonun saxaafad ahaan waa laga hadlayo haweenka caqabadahoodii dabno dhakhtar baa ka hadashay aad iyo aad bay ugu dheeraatay waxay tiri marka laga hadlayo doorashooyinkana dhinaca saxaafadda waa la yara dhaliilaa annaga laftiinuna waanu idinku yara xaglina waxaanu leenahay hana dhaliilina ka urur ahaan weyj ahaan waa urur haween waxaanu leenahay idaacadda codka haweenka waxaanu soo saarnaa xilliga doorashooyinka joornaalo waxaanu waraysanaa haweenka musharaxiinta ah waxaanu leenahay stuudiyo lagu duubay inan kasta oo ka mida musharaxada waxaanu diyaar u nahay inaanu codkeeda gaadhsiino meesha ay u baahan tahay waxaanu leenahay wuu idiin furanta weyji waxaanu leenahay idinku xidhi bayna qabaxdii la isku xidhi jireen ina walayba soo diyaar garooyaan adiga lagu waayin baanu leenahay ka wasaarad ahaan waxaan farxad noo ah annaga inkastoo oo aanu anagoo arrimaha bulshada iyo qoyska inta badan haweenka wasaaradda haweenkana la yidhaahdo oo dee waxaanu ka shaqaynaa ay u badan yihiin haween maanta waxaa farxad labaad noo ah in maxaa la yidhahdaa ay wasiir noo tahay gabadh oo berigii hore ay ahaan jireen raggana inta badan ayna arrimaha haweenka malaha haddii hoos loo siira eego ayna usii yara dhaadhicin madaxweynaha waan ku hambalyeynaya aynu gabadh noo soo dooray mar labaad dhammaanteenna waxay noo wada tahay bishaaro fiican maadaama wasaaradda haweenka haween joogaan hal shay baan doonaya inaan ka hadlo halkaas shay waxa weeyaan hadda daraama halkan lagu soo bandhigay oo mar dhawey toolaan daawanayna wallaahi waxay ka hadlaysay wax wada dhaway ahayd waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan intaynan halkan fadhidaa inaynaan imika aynaan oranin maxaa la yidhahdaa markaynu meetingkan naga dhamaada aynaan halkaa ka ilaawin aynu noqono dad ay ka go-an tahay oo dumarkeenan musharaxiinta ah ee ay noo sharaxan gobolkay doonaanba ha ahaadaan aynu garab istaagno shayga keliya ataynu maanta dumarka raacinayna ana ay noqoto duco waxa koowaad aynu rabnaa ay noqoto inay dumarkaa duca raacino inaan sacabka u tumine ay naga goonaato waxaan aynu maanta iskugu nimidnay barnaamijyo badan oo ay naga qabataa jirto oo haweenka dhammaanteen wajiyadiina badankiisana aan ku wada arko shayga koowaad aynu u baahanahay waxa weeyaan inaynu dumarkaa garab galno oo beritoole markay isku timaado xaaladii ololihii iyo reerihii aynaan reerkeena raacin aynu dumar soo saarno inaan ceeb nagu noqon sidii sanadadii hore oo aynu ka weynin aynaan ka waayin bulshada guud ahaan wax dumar oo matalaya oo aada u yartahay haddii percentage-ka midhan ballaba laga helayo marka halka qodob ee maanta dardaarankeedu yahay waxa weeyaan aynu isku duubnaano gacmo wadajirba wax ku qabtaan beritoole markay gaadho xilligii doorashada amba ayna dhaaftanaya inaan oran waa nala hakrado waxaana la siiyey percentage yare bal aynu maanta halkaa kasoo caddaano oo anu kow aanu ahaado aan noqdo qofka ugu horeeya ee waxaad doontiin inaad wasaaradda uga baahan tihiin anagoo guud ahaan wasaaradda magaceeda ku hadlaya idin garab taagan wasaaradduna idin soo dhawaataysa waan ku faraxsanahay hablaha maxay ahayd musharaxiinta ah inkastoo aan kolley anigu waxaan diidanahay ka yar muuqdaan meesha xaqiiqdii waxa wanaagsan innaga lafteennu aniga dee aragtidayda inaynan isjaamgarayn oo de haddaynu faraha ka badan oo aynan waxaynu qorsho noqon oo aynan isqorshayn inaynu isqorshayno kolley de waqti bay noo harsan marka way noo wada joogaan wasaaraddii dalladihii maxay ahayto dowladdii marka inaynu isyar qorshayno oo
bal isku dayno inaynu wax soo qayb soo saarno laakiin haddaynu nidhaahno 300 baa ama 100 baa maxay tahay musharaxiina dee inaga lafteennii baa maxay ahayd tayadii iska qaadayna xaqiiqdii qofkuna waa inuu ku xisaabtamaa waxa uu isagu haysto iyo waxa uu isagu u yahay haddii qofku aanu dhaqaalahayn haddaanu cid garab joogto oo dee maxay tahay istaroon ahayn haddaanu maxay ahayd aanu isku halaynayn maxay tahay wax badan oo ka dambeeya isaga xaqiiqdii inuu iskhasaarayo ma wanaagsana laakiin waxaan aan soo jeedinayaa in aynu isqorshayno markaynu isqorshaynona inteena kalena aynu isgarab taagno inta aynu qorshayno oo maxay tahay habla aynu soo saarno dhibaatada had iyo jeer inagu dhacdaa waxa weeye oo xaqiiqdii dee horta dhibaatooyinku dhul badan bay inagaga dhacaan xisbiyadu dee kaalin waa ku leeyihiin iyaga laftoodu oo dee haddaanay soo sharxin gabadha dee meeshii ma imanayso laakiin taas inagaa laynaga arkay baan malaynaya taa inagaa laynaga arkay 5% iyo 60 baynu mujtamaca ka nahay inaga ay socodayn karaa haddii 10 ama 6 ama 7 ama 8 aynu u garanno inay soo sharaxaan aynu u codayno oo qabyaaladaan inaga inoo shaqaynayno qabyaaladu inaga inooma shaqaynayso markaynu qabyaaladu inooma shaqaynayso mar waxa lagu tilmaamayaa qabiilkaagii waxa la oranayaa wareer hebel kursiga haka doono marna kuwii aad u dhaxday baa lagu tilmaamayaa marka qabyaaladaan inoo shaqaynayn baynu ku habsaanay oo waxa la oranayaa reer hebel iyo inaga dheeray reer hebelka inta iska daysaan hablaha u codeeya isa soo sharaxa qorshe fiicanna aan samayno oo inta maxay tahay aynu isnaado waa soo bixi karaan aan qorshaysano oo la soo baxno guul baan idin rajaynayaa ilaahay idankii waanu idin garab taaganahay ilaahayna ha laga boqo ilaahayna ha la aamino oo maxay ahayd cibaadadana ha lagu dadaalo waa salaam calaykum